waxaa saaka si rasmi uga furmay kalfadhigii labaad ee golaha deegaanka magaalada Berbera. dhammaanba waxaa ka soo qayb galay 13 xildhibaan ee golaha deegaanka loo doortay. kalfadhigan ayaa waxaa lagaga doodayaa ajandayaasha mashaariicdii fulay sanadkan, waxaana ka warbixiyey maayirka magaalada Berbera. wuxuu ka koobnaan doonaa oo la qaybin doonaa kulli ajandiisu waa 4 qodob. 4 qodob ayaynu ka doodi doonaa kuna ekaan doonaa. 4 qodob qodobka ugu horeeya waxa weeyaan in warbixin la disiyo oo fulintii guddiga fulinta golihii hore iyo golaha maantaba in ay golaha warbixin siiyaan maadaama sanadka 2021 aynu kaga jirno kala barkii kaga jirno. miisaaniyadii sanadka 2021 lix biloodkii hore inay sidii soo xarootay iyo inaan soo xaroonin, in la isticmaalay sidii loo isticmaalay mashaariicdii 2021 wixii qabsoomay iyo waxay noo haray, taasoo golaha insha Allah oo warbixin fiican oo mugle aan ka siin doono haddii Ilaahay ka dhigo. qodobka labaadna waxa weeyaan goluhu wuxuu leeyahay xeer hoosaadka golihii hore ay hore u diyaariyeen wuxuu soo shaqaynayay muddo dheer buu soo shaqaynayay. marka xeer hoosaadka waa la qaybin doonaa, isagana wax ka bedelay kaabis baa lagu sameyn doonaa. marka la sagarto ayaa kalfadhiga dambe lagu ansixin doonaa haddii Ilaahay ka dhigo, ama kana lagu ansixin doonaa. marka wasaaradda arrimaha gudaha loo geenayaa markaas uu noqonayaa xeer hoosaad qof kasta oo golahan ka mid ah, xildhibaan kasta oo golaha ka mid ah kii lagu dhaqeeyay qabanayay. xeer hoosaadkaas marka laga qaybiyo waad iska akhriyi doontaan. waxaa kusoo kordhinaysaan waa inaanu sharciga iyo xeerarka jira aanu ka hor imanin, waayo dee wasaaraddaa soo celinaysaa mar kale haddii kale wax ka hor imanin sharciga hadduu noqdo sharcina maba noqon hadduu sharciga ka hor yimaado. qodobka saddexaadna wuxuu noqon doonaa insha allahu wuxuu noqon doonaa goluhu wuxuu leeyahay guddi hoosaad buu leeyahay. xeerkii lowgii 23giina waa tii isbedel lagu sameeyey. isbedelkaa lagu sameeyey waxbuu bedelay isaguna. guddi waxaan jirin 4 xeersaadkeena 4 ku qoran kulli waa laga soo saari doonaa. 3 buu isugu soo celiyay maadaama golihii badal la dhimay, tiradiisii la dhimay. 3 guddi baynu qaybsan doonaa. waxaan leenahay marka hore inaan iska raacino, marka dambe dadkaas ka soo xushaan gudoomiyihii guddida 3 guddi kii gudoomiye ka noqon lahaa. qodobka u dambeeyana waxa weeyaan golahan cusub waxa uu taalo hawl baaxad leh. degmadii laga soo doortay degmo doorashadii Berbera ahayd oo hoos yimaadaan 5 degmo oo kale, waxaa doonayaa xildhibaan kastaaba isagoo iyagoo isku duuban inuu soo maro dhammaan meeshii uu codka ka helay ee degmo doorashadii degmada Berbera. dadkii dib loogu noqdo, dabadeedna la soo ogaado baahiyahoodii, dabadeedna haddii sanadkan gudihiisa wax laga qabanayo oo miisaaniyaddan ammaan lagu sameynayo iyadoo sharciga loo baneeyey, iyo haddii qorshihii sanadka 2020 kaaba yaale oo waqtigii la diyaarinayay bisha 7 baa la diyaariyaa in lagu saleeyo oo aynu wax qabad degdeg ah wax uga qabanaa. agaasimayaasha dawladda hoose oo 6 agaasimo ah madax qaybeedii madax farceedii iyo shaqaalihii inaga waxaan ku shaqeynaa xeerka ismaamulka gobolka degmada sidoo dhigaya inuu ku shaqeynaa 6 agaasimo ayaan leenahay. waxa kale oo maamul ahaan sameeyay dhamaanteen maamul daadejin ilaa qofka ugu hooseeya gaadhay. taasi waxa weeyaan waxa laga yaabaa inuu golayaal fara badan kaga duwanahay. waxa inoo ansaxsan xeerar fara badan oo golayaashii kan ka horeeyay iyo kuwii ka sii horeeyayba ay maxay tahay ansixiyaan. xeerarkii degmada lagu dhaqeeyay intoodii banaa way inoo ansaxsan yihiin. waxa jira xafiisyo ama maxay tahay goobo aan dawladda hoose ahayn laakiin dawladda hoose maamusho oo aynu xeerar ku maamulno. waxa kamid ah rugta kutubta ee Berbera oo ah maxay tahay mashruuc weyn oo shaqaalihiisa iyo systemkiisa leh. waxa kamid ah dugaal reebka ama rugta aynu ugu talagalnay inay noqoto meel museum oo gacanta lagu hayo oo maxay tahay ku dhigan rugta kutubta.
waxa iyaduna inagu soo biirtay oo aynu xadhiga dhawaan ka jarnay iminkana shaqadeedu bilaabmi doontaa maxay ay tahay Bastermlis Xamse Jaamacare telefishinka caalamiga badda cas 24 TV magaalada Berbera.